mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada berbera ayaa maanta kulan ballaadhan u qabtay shaqaale weynaha dowladda hoose ee degmada berbera waxaana uu kulankani daaranaa sidii ay u abaalmarin lahaayeen shaqaalihii ugu firfircoonaa sannadkii tegey ee 2019 sidoo kale waxa ay shaqaale weynaha dowladda hoose ee degmada berbera mas-uuliyiinta dowladda hoose ku abaalmariyeen inay 30% u kordhiyaan lacagta mushaharka ah ee ay qaataan waa kani madaxa shaqaalaha dowladda hoose ee degmada berbera maxamed caabi oo ka hadlaya arrimahaasi saddex qodob aan u soo jeediyay shaqaalaweynaha dowladda hoose ee degmada berbera anigoo ah agaasimaha maamulka maaliyadda dowladda hoose ee degmada berbera sanadba sanadka ka dambeeya waxa aynu galnaa xawaare iyo inaynu shaqada aynu hayno magaaladeena iyo degmadeena aynu laabno innaga oo sanad kasta doonayna inaynu muujino waajibaadka shaqo ee wax kasta iyo qof kasta iyo mas'uul kasta hoos imanaya sanadihii ugu dambeeyay dhowr harkudhig baynu soo qaadanay falilaahi alxamdu way noo hirgaleen sidaasi sallimada ayaanu doonaynaa sanadkana inaynu qaadano oo aynu horu sii soconno waxaan doonayaa inaan idin soo jeediyo isbeddel yaroo kooban oo sanadkan insha allah aynu ku dhaqaaqi doono haddaynu nahay shaqaale weynaha dowladda hoose ee degmada berbera oo noqonaya nidaamka soo gelidda iyo nidaamka shaqo ee aynu xarunta iyo xarumaha dowladda hoose ee dhammaan dowladaha hoose hoos yimaadaan kaga shaqayn doono waxa aynu ballaadhinay marka koowaad oo aynu isbeddel ku sameynay nidaamkii xaadirinta oo goob kasta oo shaqaalihiinu ay joogaan aynu gaadhsiinay sanadkan xaadiriskii elektroniga ahaa ee fingerprinterka shaqaale kastaana goobta ay ka howlgalaan sida xarunta dowladda hoose ogayaha fulinta ee dowladda hoose cabdikariin aadan cadde iyo duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin ayaa ku hambaliyeeyey shaqaale weynaha dowladda hoose sida hagarla'aanta ah ay hawshooda u gutaan wasaaradda arrimaha gudaha isla markaana ku shaqeynaya siyaasadda qaran ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan dejiyey mudane muuse biixi cabdi waxaa halkudhegeenu guud ahaa qaranka oo dhan horaa loo soconaya dhankaynu inoo kaga nimina waxa weeyaan inaynu hayaanka iyo geedi socodka horumarka iyo developmentka inagu emergency-na kuma jirno nabadgelyo darro iyo security-na kama shaqeyno oo inama haysato haddaynu nahay dadweynaha reer berbera guud ahaan madax iyo manjaba iyo guud ahaan gobolka saaxil waxaynu u guurnay inaynu ka shaqeyno developmentka iyo horumarka iyo hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo kor u qaadida nolosha bulshada reer berbera inagoo taa ka duulayna sanad walba waxaynu kordhinaa laabnaa oo ilaahay inagu guulayaa budgetkeena iyo daraskiisa waxaynu kordhinaa laabnaa fursadaha shaqo ee dowladda shaqada giijino iyo inaynu qaranka u shaqeyno si daacad ugu shaqeyno iyo inaynu waqtigeeda laabno horena waan isugu qaadanay maanta waan ku celinaynaa sanadkan 2019 waxa soo kordhay shaqadii inaynu kala jabino oo aynu inagoo markii horeba labada ruuxi jirnay qaybo kamida shaqaale weynaha dowladda hoose oo u badan waaxyaha arrimaha bulshada iyo howlaha guud inay labada gelinba shaqeeyaan aad iyo aad baan ugu amaanaynaa waxa kale inoo soo kordhay inaanu jimcayaasha shaqeyno siiba qaybta bilicda iyo saxada runtii sharaf weyn iyo karaamaydinta inoo tahay dhammaanteen waana maxay tahay wayna ka muuqata magaaladeena waxaan ku soo gabagabeynayaa marka laga imaado balamaheeni iyo maxay tahay dardaarankeeni sanadlaha ahaa maanta laba farxadood oo kale ayaan halkan idinku haynaa farxadda hore waxa weeyaan mushahar kordhintii xildhibaanada golaha deegaanku ay baaskareen 2019 oo 20 oo sideedii uga bilaabi doonta insha Allah taala ku bilaabi doonta bisha January oo ah 30% runtii aad iyo aad baan u bogaadinaa xildhibaan hoose gawaadhidii lagu bilaabay 2013 oo ilaa imkaan isbedelay sidoodiya markii isaga la daryeelay adiga markii lagu daryeelay ayaa naxantidii qaranka daryeeshay waxa bedeshay shaqaale weynuhu waxay bedeleen magaaladii bay isbedel ku sameeyeen waxa ka dhex muuqdeen dhammaan dadkii ku noolaa oo dhan bay ka dhex muuqdeen hadday tahay nadaafad hadday tahay bilic hadday tahay nolol hadday tahay aqoon waxaan aada ugu faraxsanahay boqolleyda ugu badan inay maanta yihiin dhalinyaro yihiin aqoon leh higsi leh meel u socda hayaan ku jira aan ahayn noloshiisu
meertada nololeed ee maanta uu ku jooga mooyaane aanay ahayn inuu dowladda hoose sii jooge uu yahay meel uu doonayo inuu kasii gudbo aan aada ugu faraxsannahay laakiin hadda maynaan gaadhin ogaada waxaanu doonaynaa faraawilka ubaxa uu tuuro inaan u aqoonsano inuu xashiish yahay maaha inaan bac aragno maaha inaan kartoon xun aragno maaha inaan dhagax aragno dadweynaha reer berbera waan u mahad celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa laxajecla xumada haysay ee gaadhiga kharaabka ah ee candhadii jabtay ee mashiinkii duqeeyey ee geerboxkii jabay ee borigii daxalku googooyey ee uu garanayo isagoo fiicnaa uun gaadhigii uu yaqaanee uu dalka ku mari jiray uu garanayo inuu hor yaallo uun inaynu ka hor qaadno isagoo raalli kuwaa weliba ka hor qaadnay waayo wax allaali wax manaafacaadoo ku hadhay ma jiro magacana uu soo qaato uu soo dhamaystay intaynagu hadhay laba xaafadood baan ugu hadhay xaafadda wada jir qeyb ka mida iyo xaafadda barwaaqo qeyb ka mida daar oo la weyn gabagabaynaynaa insha allahu nadaafadda ka hadhi mayno meel qof ku nool yahay oo qof degan yahay oo xashiis soo saare ka yahay inaanu kaga tagno foolxumo iyo bilxumo toona waxaynu dowladaha hoose oo dhan kaga duwannahay oo dadka reer berbere u sheegaynaa dadka dowladaha hoose way burburiyaan waanay ka qaadaan waxay hayaan inagu waynu u furfurnaa markaasaynu u nidaaminaa maase halku doonaya weliba u geynaa wixii xashiishana waynu ka qaadnaa ma dhacdo nijaariin farsamo yaqaaniin iyo kuuli baynu gelinaa gacanteennaynu ku furfurnaa gacanteena markaan ku furfurno wixii lexajecladiisa waxu ah danaynayo gaar baynu ugu dhignaa dabeedna gaadhiga intaynu ugu saarno ayuu halku doonaya inu xareyno